بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن داوديال waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Awooda Shanaad oo toddobaadka xillidan oo kale aad ka daawataan Balsan TV. Toddobaadkan barnaamijka waxaa marti noogu ah murashax madaxweyne Omar Cabduqaadir Axmed Fiqi oo ah mid ka mid ah murashaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada sanadkan 2021. mudane murashax madaxweyne farxad bay noo tahay inaad naga aqbashay inaad marti ku noqoto barnaamijka Awooda Shanaad soo dhow. waa mahadsantahay Awees adiga iyo Bahda TV waan ka mahadcelinayaa fursadan. soo dhaweyn kadib bal si kooban waxaad inooga jawaabtaa aniga iyo daawadayaasha waa kuma murashax Axmed Fiqi. bismillahi raxmaani raxiim aad baad mahadsantihiin magacayga waxaa la yiraahdaa Cumar Cabduqaadir Axmed Fiqi waxaan ku dhashay magaalada Gaalkacyo 1960 waxaan dugsiga galaaska taxaad ka soo dhigtay magaalada Gaalkacyo galaaska afraad Muqdisho aan ka bilaabay ilaa iyo jaamacadan ka baxana Muqdisho ayaan waxbarashada inteedii kale ku dhamaystirtay 1980 wadankan ka dhoofay waxaan ku noolaa dalka Canada muddo dheer oo 20 sano ku dhow oo aan haddana waxbarasho kale iyo jaamacada kale xaggaas aan ku sameeyay waxbarashadu waxay ahayd xagga caafimaadka gaar ahaan waxa la yiraahdo molecular medicine and immunology inta badan waxaan ka shaqeyn jiray research-ga iyo cilmi baarista badanaba maaragtay projectyaal cilmi baariseed oo ku saabsan immune system-ka iyo waxa la yiraahdo molecular medicine wadanka waxaan ku soo laabtay dhammaadkii sanadkii 2000 bishii November 20 sano u dambeysay waxaan joogay wadanka oo aan shaqooyin kala duwan ka shaqeynayay inta badan waxaan ka shaqeynayay ganacsi 20 sanadood iyo arrimaha bulshada laakiin boqolkiiba 80 hawlaha aan hayay waxay ahaayeen hawlo la xiriira ganacsi gaar ahaan inaanu abuurno ganacsiyo cusub oo markaas loo baahan yahay oo dalka uu u baahnaa xilliyadaas oo aan u arkaynay inay fursad shaqo abuur iyo fursad tababar ay dhalinyarada iyo wadankaba ku soo biirinayeen alxamdulillah waan ku guuleysanay mashaariic badan baan wadanka ku soo kordhinay oo ilaa hadda shaqeeya oo dhinaca caafimaadka dhinaca transportation-ka dhinaca warshadaha intaba leh marka sanadka 20 sano ka bacdi waxaan isiri armad siyaasadda ku daydaa sababtoo ah baahi baa iga muuqatay siyaasaddu inuu baahan tahay hoggaan cusub aragti cusub leh fikir cusub leh wax ka bedeli kara wixii jiray oo hore u jiray iyo dawladdii aan ku naaloonayno sugay dadka Soomaaliyeed sugayeen mar walba aad moodo inay khilaaf iyo fashilaad ay ka bixi lahayd marka bal waxaan siri dadkii hore dadku duumay ma baahan tahay bal toogan tijaabi way aad u mahadsan tahay dabcan waa si kooban ay uga warbixisay taariikhdaada waxbarashada shaqooyinka ka soo qabatay dhanka caafimaadka iyo ganacsiga nin aqoon-yahan ah doctor ah ganacsada ah gudaha iyo dibadda wax ku soo bartay 20 sano dalkan joogay siyaasaddan ogsoonahay qofkii galaa inaan loo duceynin marka Soomaaliya la joogo amaanta ay ku yar tahay maxaad go'aan ku qaadatay maxaa kugu kalifaya inaad siyaasi noqoto runtii waxaan aaminsanahay qof kasta oo runtii leh hammi inuu wadankan wax ka bedelo siyaasaddu u furanta inuu tartamo duruufta jirtay ee Soomaaliya ilaa iyo 60kii markaan dawladnimada qaadanay waxaa moodaa dadka Soomaaliyeed inaysan u diyaarsanayn inay dawladnimadaas ama dawladdii sax ahayd oo iyagu ay rabeen aysan u suura gelinin nidaamkii dawliga ah markaa xorriyadda qaadanay waxaanu ka dhaxlay nidaamkii gumeystihii ka tagay buu ka bacdina waxaan ku guuldaraysanay inaanu sidii la rabay uga shaqaysiino sababtay doonta ahaat xadaarada hooseysay aqoonta hooseysay fahamka hooseeyay haba ahaatee wixii nalooga tagay oo nalagu wareejiyay gumeysi ka tagay waa ka shaqaysin kari weynay markii xoogaa la soo fahmayna waa ku dirar oo waa la isku qabsaday oo meeshii waxba laga arkay inay nacfi leedahay nin walba yaa laga badsan reerkaaga yaa laga badsan ayay noqotay isku dirkii la isku diriray dhowr horena waa sheegay waxay ahayd waxa ka dhashay in la boobo siyaasadda in la isku dayo boobkii ugu horeeyay oo runtii aad mubaax ah oo la yaqaan waa SYL 69kii doorashadii ahayd inay SYL xoog u boobtay doorashadii oo qofka anagu rabnaa noqonaya xildhibaan lista unika wax la yiraahdo qof hebel lama sharxi karo hebel baa kursiga iskale corruption iyo boob siyaasadeed ayaa arintaas ka dhacay boobkaas waxaa ka dhashay in madaxweynihii la dilo waxaa ka dhashay in military xoog ku qabsado oo hay'adihii dastuuriga ah iyo dastuurka dalka ay laalaan waxaa ka dhashay 20 sano inaanu ku hoos noolaano dictatoriyad iyo xukun maaragtay kaligtalis ah waxaa ka dhashay dagaal sokeeye waxaa ka dhashay
dowlad fashilan oo qabyaalad ku dhisan oo dhanna u dhaqaaqi weyday marka Soomaaliya laga soo bilaabo xilligii maxmiyadda xilligii xorriyadda dowladdii ugu horeysay SYL waxaa soo dhan hadaysan cadaalad ku salaysnayn oo la arkin siyaasad nadiif ah tolo halbeega siyaasadda wanaagsan ee Soomaaliya soo martay waxaan oran karnaa waliba midba ka dambeysay ka quality liidata marka ma jirin Soomaaliya siyaasad wanaagsan oo soo martay waxa mugta nidaam dawliya waa jiray laakiin nidaam dawliya oo deeqa dadka horumariya nolosha dadka tayeeya baahidii dadka ma jirinin runtiina nidaamka dawliga waxa ugu muhiimsan oo loo rabo waxa weeyaan inuu horumariyo nolosha dadka inuu baahida dadka wax ka bedelo inuu naftooda iyo maalkooda ilaaliyo inuu xuquuqdooda kor u qaado inuu deegaanadooda mugta wax ka qabto inuu fursado dhaqaale u abuuro waxyaabo badan oo dawladnimada laga rabay oo caalamka dadka shucuubta dawladahooda ay ka helaan baan dawladeedna ka helin madax Fiqi maxay kula tahay in Soomaaliya ugu guul dareysatay siyaasad transparency ama daahfuran inay hesho runtii aniga kulahaa arintaas waa arin horta debate badan u baahan waxyaabo badan oo waxa jira hadda Soomaaliya dadkeedii iyo xilligeedii iyo waqtigii hore oo kala hadda maaha maanta waxa jira dad badan aqoon-yahanah waxa jira dad badan oo filosofarisa waxa jira dad badan oo fahamsan dawladnimadii waxa ku dhacay oo shaqeyn weysay iyo modelka dawliga aan hadda aan isticmaalno ma yahay modelkii sax ahayd bulshadeenada u baahnayd in la isweydiiyo maxay kula tahay in Soomaaliya siyaasad daahfuran oo nadiif ah u weysan mudane sababta ugu weysay waxa weeyaan horta sabab badan baa jiri kara laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan isla xisaabtan la'aan ku takrifal awoodii dawliga ahaa wixii lagu heshiiyey oo dastuurka ahaa ama xeerka ahaa ee ummadda dhaqanka u ahayd oo aan la ixtiraamin oo la abuurmay dhaqan ninka awoodda taga asagu inuu sharciga ka xoog badan yahay dastuurka ka xoog badan yahay cidna uusan dhowrin uu ku takrifalo awoodii dawliga ahayd ciduu rabo uu wax siiyo ciduu rabo uu darajo siiyo ciduu rabo uu xiro marka waxa abuurmay dhaqan siyaasi ah oo ka xoog badan nidaamkii dawliga ahaa ee loogu talagalay inuu u shaqeeyo bulshada marka runtii waxay u baahan tahay hogaamin cusub aragti cusub leh fikir cusub leh fahamsan sababta dawladnimadii u fashilantay iyo taariikhda siyaasiga ee Soomaaliya xaggee wax ka khaldamay abuuri karta bedeli karta wixii fashilmay oo dhan way 20 sano ayaad joogtay 2000 ee dalku soo laabatay bulshada oo dhax gashay aqoon-yahan baad ahayd markii ugu horeysay 2016 ayaad isku day samaysay in beeshaada maadaama nidaamka Soomaaliya hadda beel uu ku dhisan yahay kursiga xildhibaannimada inaad ka soo hesho ma aysan dhicin oo waa laga guuleystay oo maxay kula tahay sababaha ugu guuleysan weysay kursigaasi isku dagaaga koowaad waa run oo kursigaas waa isku day laakiin qaabka uu u samaysmay ama se loo dhisan gareeyay in wax loo doorto oo ahaa in erga ay soo xulaan odayaashu ergaduna ay doortaan xildhibaanada u tartamaya meesha waxay noqotay nidaam ku dhisan corruption iyo lacag oo ninkii aan lacag bixinayn ama lacagta loo baahan yahay aan bixin karinin uusan fursad lahayn marka mu ahayn tartan ku dhisan fikir tartan ku dhisan aragti tartan ku dhisan yaa wax qaban kara tartan ku dhisan yaa wax tar leh laakiin waxa tartan ku dhisan yaa lacag wata yaa lacag badan marka anigu umana diyaarsanayn inaan lacagta loo baahnaa aan baxsho iyo inaan lacag aan ku isbandigareeyo doorashada midna uma diyaarsanayn laakiin haddaad ogeyd in Soomaaliya kursiga lagu doonto lacag la bixiyo odayaashu la siiyo jaabka wax loo geliyo sabab ugu dhiiratay adigoon shilana bixinaynin sida hadda aad sheegto una diyaarsanayn inaad kursiga doorato ma waa caadi in wax la doorto oo dadka lala hadlo oo aad isku daydo inaad wixii jiray wax ka bedesho ambaarayso corruptionka aad la dirirto corruptionka aad dadka fikirkaaga la wadaagto mar walbaba la taqnado min rahmatillah waxa wanaagsan in wax lagu raadiyo ka reebi maysa tartanka laakiin ma secure garaynayso ama ma hubinayso inaad guulaysato marka ka mamnuucayso haddaan lacag bixin inaad tartanka 2016 wax lacag ma aadan ku bixin doonistaada kursiga xildhibaannimada dabcan lacag waa ka baxaysaa oo lacagta campaign-ka oo kale waa ka baxaysaa laakiin lacag cod lagu gadanayo ma bixin maxaad ula jeedaa lacagta campaign-ka lacagta campaign-ka waa logistical expenses bawr bay jaarinaysaa hotel bay jaarinaysaa cunta bixinaysaa waa lagu shaxaadaya printing material baad lacagkaaga baxaysaa waa lagu shaxaadaya marka kharashaad badan oo waxa jira aan ahayn inaad dadka codaynaya aad siinayso oo aad cod ku gadanayso marka dabcan
waxaa laga yaabaa kharashka kaloo baxayaaba inuusan yarayn. marka sababta aad u weysay kursigaasi lacagta kambeenkaaga baxda mooyaane waxay ahayd inaadan bixin lacagta kale codka. lacagta oo maaragtay dadka codaynaya lacagtii la siinayay ayaana bixin. waad iska diiday inaad bixiso. dabcan kolley dee waxaan inaan diiday waana diiday haddana kharashkaas ma bahaynba. imise ahayd lacagta oo calaa qof cod la siinaya xilligaas? kolley markiis waxaan u malaynayaa horta warkii ugu dambeeyay aan ka hayay wuxuu ahaa $5,000 calaa codeeye in la siinayo. wixii aad isku hubta maahane. marka haddii 50 aad tiraahdo waa siinaya waa almost $250,000. markaad tiraahdo 51 qofoodba waxaan siinayaa $5,000 waa lacag aad u fara badan. dad waxa awoodi kara dad yar. kursigaasi 2016 Omar Fiqi iyaa kugula tartamay adiga oo 4 sano ku shaqeynayay. wasiirkii amniga Ducaale Islo. ducaale ku shaqeynaya. ducaale kursigaas aan ku guuleystay. isaga xildhibaanka ahaa xaafadda. isaga wasiirkii xaafadda ahaa ilaa iyo haddana xildhibaanka ilaa iyo doorashada dambe. ma aaminsan tahay in 5,051 lagu dhuftay lacagtaasi kaliya uu ku soo baxay? lacagtaas xataa inuu bixiyo aanu maqan. lacagtaas xataa inuu bixiyo aanu markhaati kama noqon karo. laakiin yani perceptionkii jiray buu ahaa. suuqa waxaa yeelay calaa cod calaa qofkii 5,000 in la siinayo. qof aan intaas siin oo xildhibaan noqon karo. waa dhici kartaa ha laakiin yani detailska hoose ma ahayn. laakiin in lacag la bixinayo oo xildhibaanada dhan lacag lagu gadanayay waxay ahayd wax jiray oo kan kaliya ma ahayn. xildhibaanadii Soomaaliya oo dhan baa lacagta la siinay. oo waxay ahayd aragti guud iyo nidaam jiray oo markaas aan la isku cambaaraynin oo la isku caynayn oo aan accepted buu ahaa. oo marka cid gaar ah oo marka lagu eedeynayay aysan jirinin oo systemka sidii u dhisan garaysan. marka 4 sano waqtigan dhamaaday 8 Febraayo ku eka xildhibaanadii noqday xilkaasi qabtay calaa qof 5,000 inay ku soo baxeen wax duruufta taagneed ee caadi ahayd lagu dhigay. dad baa ka badan bixiyay dad baa ka yar bixiyay oo macnaha 5,000 ma ahayn baseline-ka. waxay ku xiran tahay kursigaas uu ahaa competitive ama dadka u tartama inta tiri leeyihiin. qaar baa la lahaa xildhibaanada 1 milyan baa ka baxay, qaar baa la lahaa 600 baa ka baxday, qaar baa la lahaa 200 baa ka baxday. so laakiin waxay ahayd macnaha in xildhibaanada 90% waxa la oran karaa lacag bay bixiyeen. laakiin lacagta ay bixiyeen kulligood isku lacag isku jaango aan ma ahayn. ninba intii markaa kursigiisu ku tagay ayay ahayd. laakiin kuraasta dabcan waxay ahayd kulligood inta badan lacag baa lagu soo geliyay. hadal aad warbaahinta u jeedisay maalintii aad ku dhawaaqaysay murashaxnimadaada xilka madaxweynaha Hotel Royal Plaza aad ka sheegtay waxay ahayd siyaasadda Soomaaliya waa ayaa lacag haysta weeyaan dhaqankaasina dhaqan u baahan in la bedelo. adiga ogsoontaas 2016 kana kursiga baarlamaanka cod 5,000 ku waayay bixintiisa sababaad iminka ugu tartamaysaa xilka madaxtinimada Soomaaliya? absolutely waa su'aal fiican dad badan way weydiiyeen. horta waxa wanaagsan in la raadiyo oo lagu dagaalamo oo fikir wanaagsan la raadiyo oo lagu dagaalamo la difaaco waa waxyaabaha asaasiga ee loo baahan yahay in lagu waqti la gasho fikirna la gasho. qodobka labaad waxa weeyaan siyaasadda Soomaaliya waxyaabaha fashiliyay waxaa ka mid ah dadku inay fashilaadii jirtay aan la qabsan aan qayb ka noqon aan sideedii ula noolaano la yiraahdana sax ma waa suuragal anoo aan lacag bixin madaxweynaha doorano wax diidayna ma jiraan. waxay kaliya u baahan tahay inaan la nimaadno hal abuurkii looga hortagi lahaa iyo abaabulkii looga hortagi lahaa. marka waa suuragal haddana qorshaheennay ka mid tahay aniga gaar ahaan qorshahayga waxaa ka mid ah madaxweynaha soo socda in la doorto ayadoo laaluush la bixin. sidee waa dhici kartaa. horta kow waa aniga kale waxay u baahan tahay horta hal abuur bay u baahan tahay. waxayna u baahan tahay abaabul. abaabulku qaybo kala duwan buu noqonaya. kow horta culimada in la abaabulo oo ay ka hadlaan in laaluushku xaaraan yahay wixii laaluush lagu kala qaatana ay dembi tahay ilaahay xaggiisana dembi ay ka tahay dadkana laga wacyigeliyo loogana digo laaluush inay qaataan. waa qodob. dhallinyarada iyo inta diyaar u ah inay arrintaas ka hortagaan iyagana la abaabulo oo la diiwaan geliyo laaluushka la bixiyo la diiwaan geliyo cidda bixisa la diiwaan geliyo musharaxiinta laaluushka bixinaysa la diiwaan geliyo cidda ay siinayaan la diiwaan geliyo
la publish gareeyo isla xisaabtankaasi intee laga soo bilaabaya la publish gareeyo waa kuwa su'aashu waa dhamaynaya oo waxay u baahan tahay little bit of details labo baarlamaanka cusub markuu yimaado baarlamaanka shaqada koowaad oo la rabo in la qabto waxa weeyaan qofka xildhibaanka markuu codeynayo waa inuu qoraa magaciisa markuu qof codeeyo waa inuu magaciisa qoraa oo lagula xisaabtama codeyntiisa inuu marka codeyntu ay noqoto sir waxay sabab u tahay ama fududeynaysaa corruptionkii in lagu dhiirado oo qarsoonaado laakiin ninka xildhibaanka ahi markuu aniga ii codeeyo oo warqadda uu boxkayga saxo waa inuu magaciisa qoraa 2 usbuuc ka bacdina la publish gareeyaa xildhibaan kasta qofkii uu codeeyay waayo adduunka waa standard jira qof kasta markuu codeeyo codkiisa qadiyadu uu codeeyay iyo qofkii uu codeeyay waa in on the record tahay waa in banaanka la dhigaa ka duwan tahay dalkeena Soomaaliya oo codka qofka xildhibaanka uu dooranayo waa qarsoodi waay mar la ogaan karo maxaa diiday in laga dhigo qarsoodi inaan laga dhigin maxaa diiday inaad qariso maxaad fududeynaysaa corruption waa fududeynaysaa aragtida siyaasadda aad aaminsantahay inaad soo kordhisaad rabta miyaa absolutely in xildhibaanka uu qoro qofka uu codeeyo absolutely 2 toddobaad ka bacdina la publish gareeyo oo media la soo dhigo oo aniga markaan xildhibaan noqdo ciddaan u codeeyay waa inaysan sir ahayn waa inay dadku og yihiin laakiin waxaad u baahan tahay inaad dastuurka wax ka bedesho marka ma dastuur ma waa xeer hoosaad kaliya la bedelaya maahana dastuurku ma khusayso arrintaani marka xeerlamaanka baarlamaanka in la yidhahdo baarlamaanka cusub hadday soo galaan tira ku filan oo dad wanaagsan ah oo damiir leh oo ka diriraya corruptionka iyo dowladnimada dalkan in wax laga bedelo waxaan ku qalqaalinaynaa oo kala hadlaynaa horta codeeyaha oo xildhibaanka ah codkiisu inuusan sir noqonin dadkuna xaq bay u leeyihiin ifiiriya dadkuna xaq bay u leeyihiin inay ogaadaan xildhibaanadooda waxay u codeeyeen waxaad ka hadlaysaa wax aad u qurux badan laakiin marxaladda siyaasadda oo qodob kale jira aniga haddii nin xildhibaan uu yiraahdo waa ku codeyna waa inuu public u sheegaa oo yiraahdo aniga xildhibaan hebel waxaan u codeynayaa musharax Umar Cabdiqaadir Xatfiqi ciidayna hay ugu dahay inuu wax qarsoodida oo qurunka oo la dhaqameeyay oo laga dhigay inay tahay sax waa in dadweynaha looga digaa bannaankana la dhigaa xamaam siyaasadeed cusub oo dadka qaarna laga yaabo daawanaya inuu arkaan waqti aan la gaarin ayaad ka sheekeynaysaa maya waxa xalaasha waqtigoodu waa maanta aad u mahadsantahay waxa wanaagsan waqtigoodu waa maanta hore u soconaynaa 2016 dad weyse kursiga xildhibaanka oo ducaale wasiir ducaale kaga guuleystay sanadkan ma doonanaysaa beeshada ma doonanaysaa maya aniga sanadkan xildhibaan ma doonanayo musharax madaxweynaha rag kale u tartamaya kusoo guuleystana waan ugu hambalyeynayna aragtida siyaasadda Soomaaliya ee aad rabto inaad haddii calaf ilaahay kugu daro qadar inaad madaxweyne ka noqoto oo aad ku maamusho dalkan maxay tahay aragtidaada siyaasadeed aniga waqtiga aragtida siyaasadeed waxay ka kooban tahay 3 qaybood qaybta ugu horeysa waxa weeyaan hay'adaha dawliga ah in dib loo reform gareeyo ama dib loo habeeyo si ay u noqdaan hay'ado tayo leh qaban kara mas'uuliyadihii loo igmaday waxa ugu horeeyana waa dastuurka oo ah xeerkii ummaddu ku heshiisay in la ixtiraamo laguna dhaqmo labo in sharaynta sharciga ama waxa la yiraahdo rule of law uu shaqeeyo oo uu dhaqan galo waayo waa wixii dadku ku aaminayeen dowladooda waa wixii caalamku lagu ixtiraamayay oo aanu noqono mujtamac ku dhisan sharaynta sharciga ixtiraamaha ku kala dambeeya wixii dhexmara sharcigu wuxuu kala gooyo waa inaan noqonaa dowlad isla xisaabtanta waayo haddaan dastuurkan ixtiraamin sharciguna uusan ku shaqaynin xisaabtan ma imaan karo haddii la isla xisaabtamo waxaa imaanaysa in corruptionka lala diriro in musuqa lala diriro in hantida boobka lala diriro oo ay noqoto hay-adihii kore kuwan ay wax ka qabtaan daahfurnaan dowladda shaqadeeda iyo waxay qabanayso iyo mashaariicda gelayso iyo ciddii la heshiinaysaan oo inay mabaax tahay oo dadka Soomaaliyeed ay og yihiin ajandaha saddexaad waa inay ku salaysnaadaan nidaamka dawliga dimuqraadiyad ku salaysnaadaan inta haddaan ku guulaysano waxaa noo fududaynaysaa inaan bulshadu baahideeda wax ka qabanno waa qaybta labaad amniga inaan wax ka qabanno waa intii corruptionka jiro ammaanka wax ka qaban kartid hantida loogu talagalay ammaanka in wax looga qabto waa la boobaya waa la kala qaadanaya guryaha turkiga looga gataa everybody know cod kasta ogtahay marka si aad ammaanka wax uga qabato caafimaadka u horumariso waxbarashada u maalgeliso waxaad u baahan tahay hay'adihii shaqadaas qaban lahaa oo mas'uuliyadaas iyo waajibaadkaad fulin lahaa horta inaad tayayso inaad wax ka bedesho inaad sharciga ku dhaqmaan inaad abuurto dadkii ka shaqayn lahaa oo ah dadka ugu wanaagsanna loo soo hormariyo dadka waa inaysan nidaamka dawliga ku dhisnayn loyalty wax la yiraahdo ama se aanu daacad yahay aanu amarka qaata waa inaysan ku dhisnayn saaxiibada inaad meesha ku aruurso ku dhisnayn inaad qarabadaada meesha ku aruurso laakiin uu ku dhisnaada
merit yaa istaahila yaa dadkan wax ka qaban kara waa wax qurux badan in qof walba meesha uu ku habboon yahay iyo positionka uu ku habboon yahay la iswaafajiyo laakiin dhanka kale waxaa muhiim ah in waaqici la noqdo dalka aad madaxtinimadiisa u tartamayso waa dal 4.5 wax ku qaybsada waa dal wasaaradaha siday u kala muhiimsan yihiin u kala awood badan yihiin qabaa'ilka loo kala siiyo waa dal dhalinyaradiisa 70% ka badan amaba 70% dhalinyaro iyo shaqo la'aan haystaan seebaad waxaan quruxda badan mabaadi'da aad ka sheekeynayso shaqada ugu horeysan qabanayna waxa la yiraahdaa xeerka la yiraahdo 4.5 wala baabina ma beenaysaa absolutely ma jira sidee baarlamaanka la geynayaa waa la kansalaya maxaa lagu bedelayaa waxaa lagu bedelayaa nidaam dimuqraadi ah oo qofka muwaadinka ay xaq leeyahay dowladnimadu waxay aaminsan tahay waxa la yiraahdaa citizen muwaadin bay aaminsan tahay qofka muwaadinka ahi wuxuu yeelanayaa xuquuq dastuuri ah laakiin dowladnimadu ma aaminsana reer hebel marka in su'aal bay weydiisay in dhameeyaan jeclahay logikeedi haddii ausan standardka caalamiga ah ee dowladnimadu ama waxa la yiraahdaa statehoodku waxay aaminsan tahay qof citizen la yiraahdo qofka citizenka wuxuu leeyahay xuquuq dastuuriya oo ku qeexan dastuurka oo la rabo in la ilaaliyo xuquuqdiisaas wadanka meel kasta uu joogo waa inuu ku helaa xuquuqdiisa dastuuriga ah oo uusan gobolkan cidina u diidi karin uu degi karo gobolka uu degan yahay oo uu ka yahay deganaanshaha ku leeyahay ama residency ka yahay ayuu ka codaynayaa hadduu doono iska sharaxayaa ka shaqaynayaa ka ganacsanayaa wadanka ma suuragal maaha inuu noqdo qabaa'ilo is-eryanaya oo iska sii horjeeda wixii dowladnimada lagu gaarayana maaha federalismka marka lagu leeyahay federalismku ma ahan qabiil federalismku waa hanaan maamuleed awooddii dowladda la wadaagayo si dadku ay ayaga qodhigooda wax u qabsadaan marka Soomaaliya way ka duwan tahay dalalka laga yaabo aad ka timid adiga amaba kuwa hormaray waxaad marqaati ka tahay oo qayb ka mid ah barnaamijka bilowgiisa aad ku qirtay in qabaa'il ahayd in doorashada la boobayay reer miyi la ahaa aqoonta ay yaraad xirfadda ay yaraad cilmiga uu yaraa sayabaad hal mar 2021ka waxa soo dhan inta uga gudubto sidii dunida looga dhaqmaa tiraahdo kana dhaqan gelin waxaan way laga guuraa mogtay in laga guuro oo loo guuro waxa jira wax ka fiicanna nolosha ku dhisan absolutely wax meeshooda joogaya ma jiraan laakiin waxaan wadnaa aragti iyo fikir looga guurayo waxa fashiliyay dawladda oo hadda jirta ay u shaqayn laadahay oo loo guuro nidaam dawli oo ka wanaagsan baarlamaanka baabi'in doona 4.5 baarlamaanka dabcan waa mooshin baa la geenayaa baarlamaanku wuxuu kansalayaa fisik aragti la yiraahdo ama xeerka la yiraahdo sideedana waxa weeyaan waynaad ogaataa wuxuu ahaa ku meel gaar 4.5 ku meel gaar buu ahaa ma ahayn wax dastuuriya oo dhab ah hadduu ka diido baarlamaanka ka waran mudan waxa la diidi doono iyo waxa la diidi doonin waa hypothetical baa la yiraahdaa hadda kama jawaabin laakiin waxa muhiim ah hadda inaan visionkeena iyo aragtideena inaan soo bandhignaa muhiim iyo waxay nala tahay waxaan ka sheekeynaa baarlamaanku haddii si dhab programkan oo maaragtay looga shaqeeyo baarlamaanku ma diiday qof kastoo Soomaaliya 4.5 inay shaqeyn weysay oo dadka Soomaaliyeed u shaqeyn weysay waa ogyahay aniga adigu waxaan ka sheekeynayno waa mustaqbalka soo socda waxaan maanta la joogin marka dhanka quruxda badan dadka abaartay waxyaabaha kale la filan karana waa inaan taxliil u keentaa oo wasiilooyinka amaba qaababka aad ku xalin doonto caqabadaha inaan ka dhageysano caqabada aad sharaxdo halkan aad ku darto baarlamaanka haduu ka diido 4.5 maxaad sameeyeen waqti kursiga maanta yaala waqti waxyaabo standard oo caalami ah jira mustawa caalami ah jira oo dawladnimada u ah aasaas oo haddaadan gaarinin aadan dawlad noqon karin ama se dawladnimadu aysan shaqayn karin waxa weeye qofka muwaadinka inuu xaq leeyahay uu degaan leeyahay kursiga la soo dooranayana waa inuu degaan leeyahay oo uusan ahayn jufi hebel aniga haddaan la deganahay magaalada aan deganahay dadka u badan haddaanan ahayn ya codna melihi matalaadna melihi sax maaha si dadku marka degaankaasayto dadka degan oo dhan waa inay u codeeyaan qofka matalan marka waa aragti ama wax la yiraahdo universal right waa xuquuq caalamiyo annaga marka inaan ku hoos noolaano sub standard wax la yiraahdo mustawa ka hooseeya caalamka dawladnimadiisa say u dhaqanto inaan aqbalo ku hoos noolaano sax ma waa inaan nidaamkeena dawliga
kor u qaadnaa oo gaarsiinaa mustawaha caalamiga oo dawliga oo dawlad walba ku dhisan wax dooda ka taagan tahay taas ma ah laakiin waxa la isku haddaad aragtidaas qaadato wadooyinkee loo marayaa doodu halkaas aragtidaas haddaad qaadato maxaa hortaagan baad leedahay maxaa hortaagan inaanu dawladnimadeena gaarsiino mustawaha aan rabno kenyada nagu dhegan mustawaheeda inaan gaarsiino maxaa na hortaagan 4.5 waa laga guuraa qaybta labaad barnaamijkeena waxaan ku eegaynaa waxaad aasaastay kutalada murashaxiinta dhexdhexaadka ah oo iyana ka duwan murashaxiintii caadiga ahaa ee la yaqiino iyana degan hotel jazeera shirarkooda ku qabsada taaganna waqtigii madaxweyne farmaajo wuu dhammaaday waa inuu banneeyaa kursiga adinka waxaad istaagteen sida magaciina ka muuqda kutalo dhexdhexaad oo murashaxiina bal si kooban noogu sharax maxaa tihi waa run weeye aragtidaasi waa jirtaa inaanu aasaasnay kudlad musharaxiin ah oo aan ugu magac darnay kudladda madaxweyne musharaxiinta dhexdhexaadka waxayna ku salaysan tahay dad siyaasadda ku cusub aan hore xilal sare usoo qabanin aqoon-yahanaa aragtidooda dawliga iyo fikirkoodu isu dhow yahay wax ka bedeli kara haddii ay fursad u helaan dalka aan ka mid ahayn siyaasiyiintii horey loo yaqiinay oo xilalka sare dalka uga soo qabtay iyo kuwa hadda jooga oo aan labada dhanba ka tirsanayn oo ka aragti duwan haddana aan laba qodob ogolayn dagaal sokeeye in la galan aan ogolayn dictaatoriyad in la aadan aan ogolayn oo uu yahay qorshahoodu dhexdhexaadnimo ku salaysan in hab dimuqraadiyad ah loo guuro caqabadaha jirana hab wada hadala oo isfahama lagu sameeyo doorashana la galo oo ay tahay looga baxo caqabadda hadda taagan wada hadal isfaham iyo doorasho laakiin marnaba ka soo horjeeda dagaal sokeeye in la galo iyo in dictaatoriyadda waddanku ay u gudub la aado ama la aqbalo labada qodobba cid tiri waan doonaynaa ma jirto waxa aad ka midaysan tahaan ama dhexdhexaad isugu magacaaba ama dhan kale isku magacaabo in kursiga la tagaa ujeedkeena kuwaasna waxay doonayaan kursiga madaxtinimada adinkana waxaad doonaysaan kursiga madaxtinimada Soomaaliya oo hadda farmaajo waqtigiisa uu idlaystay ajandihiina muxuu yahay siyaasadda horta kursiga in la raadiyo dambi ma ajandihiina siyaasadda waxa dhan oo musharaxnimada loo raadinayna waa kursiga in la tago laakiin kursiga waxa la rabaa in lagu tago si xalaal ah waxa la rabaa in lagu tago aragti iyo fikir dadka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed anfacaya oo ay fahmi karaan laakiin aan ahayn xoog iyo ana meesha joogo lagama fujin karo iyo aan ahayn ana hore u joogi jee ilaa waa inaan helaa waxa ku soo laabata su'aashan jawaabteeda maxaa idin mideeyay oo ajanda idin ah oo aad doonaysaan inaad kursiga ku tagtaan horta waxaan mideeyay ajanda noo ah waxa weeyaan koow horta inaan nahay dad waddanka muddo dhex joogay siyaasadda hadda koow ku cusub oo aan hore xilal sare dalka uga soo qaban aragtidooda iyo fikirkooda uu isu dhow yahay oo aaminsan inay leeyihiin aragtidii iyo fikirkii dalkan wax looga bedeli lahaa waxaan aaminsanahay Soomaaliya inay u baahan tahay hoggaan cusub aragti cusub leh fikir cusub leh aaminsan hay'adaha dawliga in dib loo saxo nidaamka dawliga ee maanta Soomaaliya ku dhaqantana dib loo fiiriyo loo daraaseeyo wax looga bedelo si mujtamaceena uu u noqdo mujtamac wixii ayagu qaab dhismoodkooda iyo nidaamkooda iyo nidaamkooda dawliga iswaafaqsan yahay salaam ku siinay maanta mujtamaca Soomaalida wax kasta oo dhiba wax kasta oo problemisa wax kasta oo la isku qabsado wax kasta oo xaalad ah odayaal baa dhaqa odayaal baa loo tagaa haddii la isdilo haddii wax la kala boobo haddii la isguursanayo haddii wax la kala qaadanayo haddana odayaashu kuma lahan kaalin nidaamka dawliga waa ka maqan yihiin waxaa loo dhiligeed garay ama laga dhigay in ninka siyaasiga meesha jooga uu adeegsado danihiisa gaarka u adeegsado waxaan aaminsanahay odayaasha in kaalin ay ku yeeshaan nidaamka dawliga oo loo abuuro hay'ad dastuuriya iyo kaalin ay ku leeyihiin awoodda waxyaabaha kale aan aaminsanahay waxaa ka mid ah hay-adda fulinta waxa la yidhahdo hay-adda fulinta maadaama ay noqotay hay-ad mar walbaba ku takrifasho awoodda dawliga ah waxyaabaha u fududeeyay inay awoodda dawliga iyo shacabka ku takrifasho in laga saaro ayaga laga wareejiyo maantayto waxaa taagan xukuumadda hadda jirta inay waqtigeedii dhammaaday haddana resourcigii ama se awooddii dawliga ahayd ay haystaan oo ku takrifalayaan sidii doonaan ciidamada waxaa loo dhaarshay
sharciga iyo dastuurka inay ilaaliyaan waxaa laga rabaa inay daacad u noqdaan dastuurka laakiin aysan qof u noqonin daacad haddii dastuurka la isku qabsado saan maahan waa inaan ninka awoodda leh ciidamada isticmaali karin oo uusan u isticmaali karin dadka doodu ka dhaxayso marka arrintaas waxay u baahan tahay xal in mar dambe aysan dhicinin in awoodda dawliga iyo hay-adaha fulinta hay-adaha maxaan ku yidhahdaa enforcementiga la yidhahda hay-adaha amniga aan ninka siyaasiga u isticmaali karinin dadka tartanku kala dhexeeya maxaa xiriir hadda idinkala dhexeeya murashaxiinta mucaaradka ah ee ku dhawaaqay inay u tartamayaan kursiga madaxtinimada Soomaaliya musharaxiinta horta mana dagaalsanin colna maaha waxaan aaminsanahay inay muwaadiniin Soomaaliyeed yihiin xaqna u leeyihiin inay is-sharaxaan waana soo dhaweynaynaa mabaadii aad ka midaysan tihiin oo aad wadaagteen oo aad isla fariisateen ma jiraan mabaadii gaar ah oo naga dhaxaysa ma jiraan waxaan nahay tartan baa naga dhexeeya laakiin waxaa naga dhexeeya inaan isku ixtiraamno inay qof walba xaq u leeyahay inuu is-sharaxo ka muwaadin ahaan waxaa kaloo naga dhexeeya inaanu juhdi wada gelinno in wadanka doorasho xor oo xalaal ah laga qabto qofkii ku guulaystana loo hambalyayo laakiin dhanka kale wax dhaqdhaqaaq ah oo aad ka muujinaysaan waxyaabaha hadda socda oo cad sida murashaxiinta kale ma muuqanayaan annaga shir jaraa'id baan qabanay halkaan aan ku qabanay 7 February habeenkii waxaanu iclaaminay oo miidiyaha aad u gashay dalsan xataa waa joogtay in dowladda xilligeeda ku egyahay habeenkaas 6 saac habeenimo ama 12 saqda dhexe wixii ka dambeeyana dowladda waqtigeeda u dhamaaday aysan sharciyad haysanin ay ku joogto waddankan ku maamusho waxaan soo jeedinay in gudoomiyaha baarlamaanka xilka la wareego oo uu gaarsiiyo doorashada 3 bilood soo socotana doorasho la qabto taladii koowaad hore taas ahayd labo haddana kula hadlayno madaxweynaha waxaanu aqoonsanahay inuu waqtigiisii dhamaaday oo uu hadda inuu villa Soomaaliya joogo oo madaxweyne sheegtay aysan sharciyad ku dhisnayn oo sharci darro tahay loona baahan yahay ilaa haddana aan aaminsanahay waxa sida saxa waxa weeyaan gudoomiyaha baarlamaanka in uu xilka la wareego haddii madaxweynaha xilligiisu dhamaado hadduu madaxweynuhu dhintay la wareegi lahaa haddii madaxweynaha accident galo uu noqdo incapacitated yaa la wareegi lahaa waxaan qabnaa inuu yahay ninka haddii sharciyadii dhacday oo dood la isku haysto oo madaxweyne ma ahid kuma aqoonsanin waa madaxweyne aan hay doodaas hadday timiday waa in gudoomiyaha baarlamaanka la wareegaa doorasho la galaa laakiin aysan ahayn awoodii dalka in ayadoo muran la isku haysto xoog lagu haysto awoodii dawladana loo adeegsado dadkii dooddu idin kala dhaxaysay waa sax ma labo shalayta ayaan waxaan qabanay shir jaraa'id oo aan ku iclaaminay oo aan ku cambaaraynay falkii dhacay oo dadkii musharaxiintii mudaharaadka abaabulay iyo ayagiiba lagu weeraray ciidankii dawladda ciidankii shacabka lagu weeraray la kala eriyey dad ku dhinteen arrintaas arrin aad looga xumaaday ahayd waana cambaaraynay raallina kama nihinin dadkana inay xaq u leeyihiin inay mudaharaadaan baan aaminsannahay oo ay tahay xuquuqdooda dastuuriga ah oo ay tahay in la ilaaliyo mar walbaba waxa marka meesha ka muuqda ku takrifal awood ayadoo hay'adihii dastuuriga ahaa waqtigoodii dhamaaday si sharci darro ah weli lagu haysto xukunkii dawladda la diidan yahay in la wada hadlo oo waxa yimiday xal siyaasadeed laga gaaro marka arrimahaas oo dhan waa ka hadalay miidiyahana waa ku jiraan sidaa sheegtay waxaa tihiin aqoon-yahano ujeedooda dhanka siyaasadda aan caan ka ahayn Soomaaliya hadda doonaya inay saameyn ku yeeshaan amaba hogaamiyaan dalka muxuu yahay xiriirka idinkala dhaxeeya wadamadaad ka timaadeen amaba wadamada daneeya Soomaaliya beesha caalamka si kooban haddaan u yiraahdo anigu taydan ka hadli karaa shakhsiga ah anoo shakhsi ahaan hadda wadan ajnabi aan xiriir la leeyahay ma jiro mana aaminsaniba shakhsiyan in wadan shisheeye ah kaalmo laga raadsado ama hanti laga raadsado waayo ayaga beritoole waxay kugu yeelanayaan saameyn kugu yeelanaya talo dalkaagii baa maaragtay lagula fargelinaya oo dana shisheeye inay meeshaas ka muuqdaan baa imaanaysa marka aniga badanaa maadaama aan ganacsi muddo dheer ka soo jiray ka soo shaqaynayay ganacsatada aan xiriir badan leenahay waxaan rajo ka qabaa wixii dhaqaalaan u baahanay inaan ganacsatada Soomaaliyeed aan fundraising ka samayn doono haddii cid influence ugu yeelanaysana ayagu hay ugu yeeshaan ayagana dalkan iskale dadkan iskale inay maal gashadaan siyaasadana waxay u baahan tahay shaqooyinka annaga noo yaal bay ka mid tahay dhaqaalaha aad is leedahay madaxweyne aad ku noqon kartaa muxuu leeyahay aad uga baahnaan kartaa ma lama estimate garan karo hadda kuma dhihi karo dee nambarkaasaa loo baahan yahay laakiin hadda
gurigan waa kiro kharash baa ku socda miidiyaha lacag baa ku socota bishii waxa laga yaabaa 20,000 $30,000 inay iga baxdo laakiin ilaa hadda wixii bixinaya waa kharash aniga jaabkayga adiga mooyaane yaa kale ku maalgeliya maadaama shakhsiyan aad tilmaantay lacag awood badan oo 20,000 laga yaabo inay ka badan tahay ama ay gaarayso yaa kaa saacida qarash ma lacagta ilaa hadda kharashka baxaya ana isaga filan يعني مسبب الله isaga filan tahay kale dawaan arki doonaa waxa waxay ku xiran tahay doorashada si uu soo degdegto ka waran hadii 2000 waqti badan qaadato 6 bilood kale waxa moogta waad qiimeynaysaa binaadan baa tahay hadii doorashadii iyo jadwalkeedii uusan muuqanin ta kharashka iska sii wada meesad waad yareynaysaa oo budgetkaaga baad yareynaysaa dib baad isugu laabanaysaa marka mar walbaba qorshahaaga iyo balaankaaga iyo budgetkaaga wuxuu ku xiran yahay dhaqdhaqaaqa iyo jadwalka iyo in la og yahay xilligu dhamaanay marka review baad ku sameynaysaa xaliya wali waxaad daawaneysaan barnaamijka awoodda shanaad dalsan TV idinkaga imaanaya waxaa marti ku ah murashax madaxweyne Cumar Cabdiqaadir Axmed Fiqi oo sanadkan ka mid ah murashaxiinta u tartamaya halka madaxtinimada Soomaaliya haddaad iminka nala soo qabsatay waxaan ku faraxsanahay inaan ku soo dhaweeyo ama kugu soo dhaweeyo barnaamijka awoodda shanaad isoo laabasho wanaagsan mudane murashax madaxweyne waxaan ka soo hadalnay siyaasadda kursiga xildhibaannimada sida Soomaalida wax ku qaybsato 4.5 ah qaybtan waxaan rabaa su'aalo ka kooban oo dhanka ammaanka iyo aragtidaada siyaasadda iminka dalka ee marayso qayb ahaan aad tilmaamtay inaan kuula wadaago Soomaaliya waxaa saameyn ku leh dunida inteeda kale si gaar ah beesha caalamka meesha ugu weyn tusaale soo qaadan karno waa ammaanka ciidamada AMISOM midowga Afrika ayaa 2007 sanadkii 2007 ogolaaday in Soomaaliya nabadii laga saacido waa maxay aragtidaada ku aadan ciidamada ajnabiga ah ee Soomaaliya jooga طبعا horta ammaanku waxyaaba asaasiga ah ee bulshada u baahan tahay weeyaan hadii ammaan aan la helinna wax la qaban karo badan ma jiraan horumar lama sameyn karo nolosha dadkuna wax badan iska bedelayaan marka horta ammaanka in la sugo aniga waxaan aaminsanahay inay tahay muhiimadda koowaad si ammaanka loo sugana waxaad u baahan tahay wax la yiraahdo caqabadaha jira inaad daraasaysid oo ammaanka hortaagan in la sugo caqabadahaas markaad ogaatana qaabkii loo wajihi lahaa oo dhammaystiran waa in la helaa ciidamada ajnabiga dabcan baa shala keentay anigu waxaan qabaa haddii dowladnimadu wanaagsan tahay oo aanu waxyaabihii aan hadaaya soo sheegay aanu si dhaba u fulin oo hay-adaheena aan dib u habayno dad yaraan nama hayso ciidan waa ilaa cabdullaahi yuusuf ciidan baa la qoraya sanad walba haddii marka maanta la tiro kooba inta ciidan la qoray 200 kumay noqonaya tan overga waxa la yiraahdo isbedelka ciidamada sanad walba ciidan kuwii hore aawee kuwii la soo tababarmay xagee bay aadeen maxaa ku dhacay lasma weydiiyo kuwa cusub la keenaya waa baxayaan kuwa kala imaanaya waa labada marka waxaan u baahanahay runtii strategic thinking wax la yiraahdo afka qalaad macnaha inaan si istaraatiiji u fikirno dhalinyaro waa buuxdaa dalkooda inay difaacdaan bay rabaan waa ku filan yihiin shaqadooda inay qabaan maxay u baahan yihiin aan isweydiin tababar bay u baahan yihiin daryeel bay u baahan yihiin qalabkii ay ku shaqeeyaan bay u baahan yihiin dhaqaalihii ay u baahan yihiin logisticadu ay u baahan yihiin haddaanu intaas ku guulaysano inaan u samayno ciidan ajnabi uma baahan dhanka kale Soomaaliya waxyaabaha hadda ay wajahayso ama caqabada ugu weyn ee kala kulanto waa dhaqdhaqaaqa al-shabaab waa maxay aragtidaada ku aadan al-shabaab haddaad nimankaas rabto in la dagaalanto horta kow askarigooda intaadan la dagaalamin waxaa ka horeeya dhaqaalahooda in la dagaalanto financing waxa la yidhahda telecommunicationkooda in la dagaalanto logisticadooda iyo supply chainkooda iyo meesha ka keenan iyo shidaalka iyo howlahooda in la dagaalanto ya xamar cashuur bay ka qaadan oo ogtahay yaa la dagaalama cid la dagaalanta ma jirto daacadna lagama ahan in lala dagaalamo dowlad aan dhihi karno si dhabay ula dagaalantay waxaan u malaynaya tii Sheekh Shariif baa u dambeysay wixii ka dambeeyey waxayna ka mid ahaayeen nidaamkay ka mid ahaayeen haddana tan dambana waaba soo xoogeysteen qofkii rabaan bay dilaan meesha rabaan bay qarxiyaan dadkii lacag ka qaadaan canshuur ka qaadaan cid la dagaalanta ma jirto marka runtii waxaan leeyahay aniga aan qabaa waa maxay istiraatiijiyada markaan ku lahaa qorshe dhammaystiran oo ka kooban qaabkay u shaqeeyaan financigooda logisticadooda communicationkooda meeshay joogaan waa inuu yahay waxa horta packagekaasi ya ka bacdina dadka hawshaas qabanaya waa inay u carbisan yihiin waa inay u tababarsan yihiin waa inay u diyaarsan yihiin waa inay wax alla waxay u baahnaayeen si ay waajibaadkoodaas u gutaan diyaar u yihiin waa ognahay askarta inta la geeyo frontiga ayaan markii shidaal u baahdaan aysan helin
markay cunto u baahdaan aysan ciriiri ka tahay markay u baahdaan moogtay yani si dhab ah oo daacad ah oo aan isdhihi karo waa professional looma shaqeeyo inta aan ka warhayno ama dowladda nala wadaagtay dadaal ay ku bixiyeen dowladihii ugu dambeeyey oo Sheekh Shariif ka dambeeyey la dagaalanka al-shabaab awood military iyo mid dhaqaale iyo mid istiraatiijig oo dunida ay ka taageertay Mareykanka howlgal ay ka taageeraan intuba way jireen wax ka duwan ma haysaa haddii kulli anigu moogtahay xogtaan hayaan kula wadaagaya tusaalena waa ku siiyey haddii intaa la sameeyey way canshuurta uga qaadayaan xamar iga jawaab lama samay moogtahay hadal macno ma laha practical raba waxaa la yidhaahdaa ficilku wuxuu ka dheer yahay ka cod dheer yahay hadalka marka in la hadla macno ma samaynayso laakiin ficiliyan nimankii soo xamar maalin walba qarxiyaan marka qorshaha dhamaysto su'aal bay weydiisay waana in naqdisay marka waxaan rabaa inaan ku siiyo su'aal waajib xamar maalin walba la qarxiyaa mise waa kaaga jira xamar qofka rabna ku jiraan xamar canshuur ma ka qaadaan xamar taleefanka rabna ka soo wacaan say idhii karta marka waa la dagaalamay cid la dagaalanta ma jirto let's be honest aan daacad ka noqon runtana ka sheeg qorshahaaga waa qorshe military aad uga hortagaysaa طبعا ده سؤال maxaa wax loo qaban karaa hadday wada hadal diyaar u yihiinna waa noo furanta wax diiday ma jiraan wada hadal ma la gelaysaa al-shabaab hadday diyaar u yihiin wax diiday ma jiraan waa dad Soomaaliyeed weeye hadday hubka dhigayaan oo nidaamka dawliga qayb ka qaadanayaan sabab loo eriyada ma jirto ha waya qaybtii dambe barnaamijkeena marayna Somaliland maxaad ka aaminsan tahay 1990kii waxay ku dhawaaqday jamhuuriyad iskeeda ka go'do Soomaaliya inay tahay anu aragteen Somaliland kaga wax weyn horta in la isweydiiyo Somaliland maxay shalow tagtay maxay ka carartay maxaa kalifay inay tagto tirada goosan sababaha ay sheeganayeen maxaan ka qaban runta in la sheegaa rabaa sababaha ay ka carareen cadaalad darro ka carareen dulmi bay ka carareen dil bay ka carareen ma waxba dawlad xumay ka carareen diktatoriyad bay ka carareen maxaad ka qabatay wixii ay ka carareen oo shalay ayaga kaligood maana Soomaali ku kala tagtay ayaan maanta xamar ku haynaa wax ka duwan kuma hayno marka bisaraxa haddii aan si saraaxa u hadlo waxa weeyaan wixii dadkaas shalay dhibtii loo geystay oo ay ka carareen maantay dad kala carari doona haddaan wax laga bedelin waxaan qabaa marka Somaliland intaadan ka hadlin horta xamar wax ka qabo haddaad xamar hagaajisid Somaliland waa kula hadlaysaa waxbaad isu darsan kartaa laakiin adigoo xamar maalin walba dadkeedii la qarxinayo maalin walba diktatoriyad iyo xabad dadka shacabka lagu laynayo Somaliland inaad ka sheekayso maba banaanaba ya waxaan u haynaa niyad wanaagsan waxaan aaminsanahay dad walaal inay yihiin waxaan aaminsanahay dawladnimadii shalay ay qaybta ka in lagu dhibaateeyay inkastoo Soomaali badan oo kale lagu dhibaateeyay laakiin annagoon halkaan xalinin oo dawlad wanaagsan oo ay ku noolaan karaan oo ay aamini karaan oo ay wax ku darsan karaan aanan haynin Somaliland waxay dalbanayaan kuna celceliyeen 22 sano la soo dhaafay inay ka go'ayaan Soomaaliya midnimadii Soomaaliya ma u ogolaanaysaan aragtidaas inay ka go'aan Soomaaliya aniga waxaan qabaa aragtidaas wax qof go'aankiisa ma adduunku wuxuu leeyahay qaab wixii dawladaha hadday kala baxayaan oo kala baxaan oo la yiraahdo process bay maraan waxay u baahan tahay process lagu heshiiyay inay maraan oo wixii ka soo baxa la aqbalo laakiin processkaas si loo aqbalo dadku waa inuu jiraa waxay kala doortaan oo la yiraahdo kanna waa saan midnimada wanaagaanay leedahay kala taguna xumaantaan u leeyahay marka midnimada aad ku baaqaysid wanaageedii horta waxaan rabaa inaad miska soo saari karto aawo kuwii hadda joogay oo nala joogay oo midnimada rabay ayaa waxaa la leeyahay xaq ma lihdin laydan waraysan maa kuraastiina annagaa boobayna oo qaylanayoon cidina dhag u dhigayn markaasa ku soo noqonaa dadka waxay ku soo noqon karaan waxaa cadaalad in la helo dawlad wanaagsan in la helo dawlad ay aamini karaan oo mustaqbalka carruurtooda ay ku aamini karaan in la helo dimuqraadiyad ay wax ku darsan karaan in la helo yaro marka waxaa la rabaa wax walba waxbaa ka horeeya waxaa la yidhaha prerequisite waxaan rabta inaan ka hadalno wixii ka horreeyey waa horta waa in la saxaa laga hadlaa meel la saaraa oo aanu idhaahno waxaananu haynaa wixii shalay maaha wax ka duwan baanu haynaa laakiin wixii shalay ay ka carareen wax ka xun baad meesha ku haysaa maxaad ugu yeeri دكتور كنت تخصصي عافيماتك ganacsado muddo dheer ah khalfiyaadkiisa ama historygiisa siyaasad aysan ku jirin hadda raba inuu u tartamo halkan u socdo waxa weeyaan maxaa ku caawinaya si dalkan siyaasadda aad ugu hogaamiso waxaan aaminsanahay siyaasaddu mar walba waxay u furan tahay qof kastoo muwaadina waa kow umana baahna inaad wasiir ahaan jirtay ama wax ahaan jirtay ama siyaasad ku dhex jiri jirtay ama se weliba Soomaaliya dawladeedii fashilma ah qayb ka ahaan jirtay
waa inaad leedahay aragti cusub iyo fakir cusub oo wax ka qaban kara dhibaatooyinka jira waxna ka bedeli kara lehna hiigsi iyo fikir uu wax uga bedeli karo dhibaatooyinka dalka ka jiray aragtiyada quruxda badan ee mustaqbalka siyaasadda inaad ku hogaamiso aad ka sheekaysay iyaad uga dayanaysaa yaa kuu ah tusaale hogaamiye siyaasadeed ani waxaan aaminsanahay dadku inay halabuur yeeshaan fikir yeeshaan mana aaminsaniba in qof kale lagu daydo waa inuu aragti kasta tahay original ama se asal ay tahay oo adiga ay kaa soo maxtaa si aad hogaamiye u noqoto oo aad la timaadaa caqabadaha ku hor yaalla ee localkaaga aan meel kale laga helinin xalkoodii aad arki kartaa caqabadaha laakiin taariikhda waxaa la yidhaahdaa ayada isku laabata waxyaabaha jira meelaad ula laabato oo taariikh aad uga cabir qaadato aad u laabanaysaa ma jirto annagoo soo martaa jirto miyaysan role model tilmaamo ku ahayn aragtidaydan ka hadla qofka aniga waxaan aaminsanahay halabuurku inuu yahay horumarka gundhigiisa hadduu noqdo fikir siyaasi ah yani waxaana waa wax caam ah oo la wada yaqaano oo guud waxaana waa wax khaas ah oo qofku uu leeyahay oo laga rabo inuu la yimaado asagu xalkeeda midda guud oo caamkaa kolley waxaan isleeyahay nin kastoo siyaasi ah in kastoo dad badan oo aan background balahayn oo wixii la soo maray iyo waxa dhibka jira iyo taariikhda siyaasadda Soomaaliya dadaan la soconba ay hadda siyaasadda Soomaaliya dominaareeyaan oo ay xoog ku leeyihiin laakiin haddana waxa muhiim ah aragtiyo cusub mar walba in lagu soo biiriyo maxaa la yiraahdaa siyaasadda ugu dambeyntii hal daqiiqo waxaad igu soo koobtidaada ku aadan marxalada lagu jira dibadbaxyo ay ku baaqeen murashaxiinta mucaaradka ah isbedel doonka ah dowladda wali waxay rajo ka qabtaa shirarkii iyo dadaaladii lagu go'aaminayo doorashada waa maxay aragtidaada ku aadan marxaladda siyaasadda ma ana ku sheegay horena kugu shahaadana ku celinay xuquuqaadka dastuuriga mar walba waa taageernaa dadku inay mudaharaadaan xaq bay u leeyihiin waa dastuuri in laga hor istaaga ma qabno labo waxaan ku leeyahay in caqabadaha jira oo siyaasiga ah in looga gudbo wada hadal iyo doorasho ayaanu aaminsanahay dictatoriyadna ma ogolin dagaal sokeeyana ma ogolin xoogna ma ogolin marka labada shay oo gundhiga u ah waxa aan rabno maxay yihiin oo aan rabo shacabka Soomaaliyeed inay maqalaan dagaal sokeey ma ogolin dictatoriyad ma ogolin ya wixii hadda jira oo caqabadaha waa in looga gudbaa wada hadal doorashana la galaa si isbedel u yimaado aad u mahadsantahay dawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka Awoodda Shanaad oo toddobaadkan marti noogu ah murashax madaxweyne Cumar Cabdiqaadir Axmed Fiqih oo ka mid ah murashaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada Soomaaliya oo uga mahad celinayno waqtiga uu idinkula qaatay barnaamijkan toddobaadka kan xiga intaan dib ugu kulmeyno anoo ku faraxsan inaad daawateen barnaamijkeena waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo